kulanti wacan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa barteen YouTube-ka ee Fagaare Entertainment waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka baraha bulshada lagu hadalhayo fadlan daawada subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si uu ku soo gaaro muuqaalada aan halkan soo dhigno wali waxaa taagan hadalhayntii ka dhalatay gabadhii inkirtay ama hooyadii inkirtay ilmaheeda waa Hani Mu'mine iyo Cabdisalaan iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Kamaal dadka intooda badan aad ay uga dheregsan yihiin bilow ilaa dhamaad dhacdadan xanuunka badan ee baraha bulshada haysatay maalmihii la soo dhaafay Hani waa la sixray sida ay u badan tahay ama sida la sheegay ama sida laga dareemay iyada hadalkeeda iyo waalidiinteedaba sida ay aaminsan yihiin waxaana sixirkaasi la sheegay in uu ka dambeeyo Kamaal Cabdulle oo ah YouTuber ku nool Turkiga waxaa la sheegay Hani inay ahayd hooyo dhashay 8 caruur ah balse Ilaahay uu ka oofsaday 3 caruur ah waxaana hadda ay haysataa 5 caruur ah ninkii qabay ee Cabdisalaan waxa uu sheegay in gabadhaasi waa Hani uu isbedel weyn ku arkay 5 bil ka hor isaga oo sheegay in gabadhu uga shakiyay in maskaxdeedii la bedelay waxa uu sheegay Cabdisalaan in Hani Mu'min oo isbedel ka dareemay 5 bilood ee la soo dhaafay ay ka codsatay in ay safar ku tagto Faransiiska si ay maskaxdeeda halkaasi ugu soo dejiso ay markaasi aaday nin kale oo lagu magacaabo Kamaal Cabdulle laguna arkay dalka Turkiga halka ay ka filayeen Faransiiska warays uu bixiyay ayuu ku sheegay Cabdisalaan in ama kaag ila yaab ay ku noqotay waxa ay sameysay Hani Mu'min sidoo kale wuxuu carabkiisa ku dhuftay in uu arkay meherka Hani Mu'min iyo Kamaal Cabdulle oo ka dhacay degmada Afgooye ee Shabeellada Hoose isaga oo arkay muuqaalo laga soo duubay iyo sawiro markaas meherka ku saabsan waxa uu kalo ama kaag iyo fajac ku tilmaamay in ninka meheriyay gabadhan oo horey loo qabay uu ahaa nin kale oo isagu ay saaxiibo yihiin balse aan aabaheeda ahayn arintan ayaana dood ka dhexdhalisay baraha bulshada waxaana dadka yaqaan Hani ay ku tilmaameen in maskaxdeeda aysan fadhin isla markaana maskaxdeeda gabadhaasi la bedelay Cabdisalaan mar wax laga weydiiyay gabadhan iyo Kamaal Cabdulle arintooda waxa uu sheegay in gabadhaasi la sixray isla markaana uu ka dambeeyo Kamaal aysan war cid kale ka maqlaynin sida uu sheegay waxa uu sheegay in marka aad caadi ula sheekaysato Hani ay caadi kula hadlayso balse marka aad ku soo hadal qaado ereyga Kamaal teleefanka ay kugu jarayso ama ay xanaaqayso taasi oo cadeen u ah buu yiri in la sixray gabadhan sidoo kale wuxuu sheegay in hooyadeeda aysan aqoonin aabaheeda aqoonin caruurteeda aqoonin isaga aysan aqoonin hal nin kaliya ay taqaano waa Kamaal Cabdulle arintan fajac iyo ama kaag ay baraha bulshada ka dhalisay wali doodeeda waa ay taagan tahay Cabdisalaan wuxuu sheegay in aan arintan liskaaga hari doonin isla markaana maxkamad ay gaari doonto wada hadal ayuu sheegay inuu u socdo 3 reer waa reerka Kamaal Cabdulle reerka asaga uu ka dhashay iyo reerka Hani ay ka dhalatay Kamaal waxa la sheegay in ehelkiisu ay la hadleen aabihiisa adeeradiisa abtiyaashiisa walaalihiisa balse uu warka maqli waayay isla markaana uu diiday inuu gabadhaasi soo fasaxo isla markaana uu furo waxa kale oo la yaab ah in Kamaal uu dhaartay ama kitaabka Ilaahay ku dhaartay isaga oo ka been sheegay waxa uu yiri anigu maba ogeyn in gabadhan horey loo qabay dadka aqliga u saaxiibka ah waxay ku eedeeyeen Kamaal inuu kala garan waayay gabar iyo garoob taasi oo wax la yaabo noqotay bal ila daabada qayb yar oo kamid ah waraysiga Cabdisalaan ninkan ujeed kale oo gabadhan ka leeyahay oo aan ahayn inuu ku shaqeysto waxay ogtahay mala gabadhan inuu inta meesha marba soo fadhiisiyo hadal oo yiraahdo ma gabar aan ciyalkeeda aan ka warqan inkirayso aan ogeyn xasuusnayn inkir macnaha ma ka wada macnaha ma xasuusna aabaheed ma xasuusna hooyad ma xasuusna waxaan Kamaal hayn ma maqasho Kamaal oo taqaan bis arintan wali waa ay taagan tahay wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan